kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka goobjoog kusoo dhawaada barnaamijka maadiya maweelo toddobaadkiiba goorahan oo kale aad ka daawataan telefishinka barnaamijka maanta waxaa inagu martay cabdifataax ibraahim amiir oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga magaalada muqdisho gaar ahaan dugsiyada sare isla marhaantaasina ku xeel dheer afka iyo dhaqanka Soomaalida waxaanu haddaba doonaynaa inaanu ka wareysano qaar ka mid ah ciyaaraha dhaqanka Soomaalida iyo guud ahaan nolosha dadka Soomaaliyeed ee reer guraaga ah ustaad marka hore kusoo dhawaad goobjoog TV waa ku dhawaay marka hore goobjoog TV insha Allah taala waxaan jeclahay inaan barnaamijkan dhaqanka iyo suugaanta maadaama aan barnaamijka marti ku ahay inaan wixii aan garanay aan ka falanqoodan diyeebay waata marka hore waan u galeynaa dabcan afka Soomaaliga iyo dhaqanka iyo aqoon dheer aad u leedahay iskuulo badan oo dugsiyo sare badan baad ka dhigtaa akademiyada qaarkood qoraalka iyo lagu barto farta ayaad madax ka tahay oo qaar milkiyadeed aad leedahay waxaasna waan u galeynaa laakiin bal marka hore taariikhdaada koob ilaa bulshada ku daawanaysa qaar ku garanaya qaar waxa isku jiraan aad baad maasan tahay mudane anigu magacayga saxda ah xaliyada Cabdifataax Ibraahim Amiir oo markaas bulshada ay garan ogtahay Ustaad Amiir waxaan ku dhashay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Liyaa Jallaqsi waata ama Jallaqsi waa isku mid ariyaha marka leeyahay dadku way garanayaan ragay u dhasheen ka hadlaya mogti dadku kalena way yaqaanaan halkaas baan ku soo bartay dugsiga hoose iyo dhexe dan waxaan nimid magaalada Muqdisho halka baan dugsiga sare ku dhameystay jaamacadeydii howlahayga aan ku dhameystay ilaa double badge aan ku noqday iminkana waxaan ahay macallin dhiga maadooyinka afka Soomaaliga ku baxa inta badan ilaa muddo adiga 7 sano ah aan macallin ka ahaa maadada afka Soomaaliga waata marka waxa isleeyahay wax badan oo markaas bulshada ay u baahnayeen oo soo bandhigay wax badan wali way dhimeen oo raadkeedan ku jira ma garat waata marka magacayga waa sidaas Ustaad Amiir baan ku magac dheerahay dhanka social media dadka aad bay u yaqaaneen Ustaad Amiir adiliya laga yaabay in ay soo wadayaan dadka dhan aad iyo xagga waxaad ka tahay caamad ka tahay waxaan ahay macallin mar haddii dhiga afka Soomaaliga bariyo hore waxaan inta badan aan xoog saari jiray bixinta maadooyinka iyo ereyadaasi Soomaaliga aan xoog saari jiray laakiin bariyahan dambe waxaan ogaay qoraalka maadada waata oo Laatiinka لأنه وحي أديت كل هذه كتب إحنا كسمين كتير ده وأنا سيستم كعد قريش إنه نقدان ضد كوحلا بريكة أكاديمي دي مركا ده لا سكول بقى حتى أفريو سكول أنا قاعد لاقي هدي كيا لقلن يقرال وباروح كيا لا ومركز الجو برتقرحين تفرتها عربي لاتين أد ولي بوح ده وبدن لاتينكا ده وحكلي فين وحويان عربي أنت تقعنا الصومالي ده وبد أدي وبدين ونهلك أنا قفك لكن لاتين qofka yaqaanna ma dhigaday badato day jirtaba wata marka sida darteed baan isku hawlay iskuul baa hadda saas oo kale aan ka dhigaa iskuulada aan ka shaqeeyo iskuulada magaalada muxuu ahaa dugsiyada sarane insha Allah taala wax badan waan ka dhigay iminkana waan si jeclahay inaan si wada hawshay wata aad iyo aad mahadsan tahay barnaamijkan waxaan xoog ku saareynaa ciyaaraha dhaqanka oo Soomaalida oo dabcan qudhoodu dhaqanka iyo daha meel ama kaalin muhiim kaga jira marka si gaar ah waxaan u eegaynaa gobolka Hiiraan maadaama halka aad ku dhalatay gobol saqaafadiisa ama dhaqankiisuna kaalin fiican kaga jira oo gobolada waqooyi iyo bartamaha ay koonfurta iyo galbeedka uu isku xiro gobolka uu yahay bartamihi ama meesha isku xiraysa kulminaysa marka si gaar waxaan u falaqeynaa bal ciyaaraha guud ee dhaqanka iyo sida yabaha kala duwan loo ciyaaro iyo ma garanaysa qudhoodu waxay ka kooban yihiin qaar baa jiib iyo channel qaar baa cag iyo cod kaliya qaar baa fadhiga lagu ciyaara bal hadda qaar kamid ah ciyaarahaas waad maasan tahay Liban gobolka Hiiraan horta waxa ku nool khalqi kala duwan bulsho kala duwan ummad kala duwan in kastoo gobolka Hiiraan ay isku yahdana way kala dhaqan duwan yihiin marka la eega ciyaarahooda lafta way kala duwan yihiin laakiin waxa jira waxyaabo common ah dadka ay ka midaysan yihiin ciyaaraha iyo waxyaabo dadka qaar ay leeyihiin baa jira waxyaabaha common-ka kamid ah hadda dadka ay wada isticmaalaan oo hadii la sheego dhamaan ay wada dheeli karaan waxa kamid ah ciyaarta liyaada dhaantada oo kale gobolka aad buu caan ugu yahay dhaantada waxa kale kamid ah ciyaarta liyaada walaasaqo dadku reer Hiiraanka ah gabi ahaan way ciyaareen inta badan way fara badan yihiin ciyaaraha marka la yiraahdo naftada waa si kala qaybin karna waxa jira ciyaaro dumarka bas ay ciyaaraan ciyaaro ragga ay ciyaaraan oo kaliya ciyaaro labada isku jira waa jiraan oo ka dhaxeeyaba aad iyo waxyaaba ka dhaxeeya hadii aan wax ka sheegno waxa kamid ah sida dhaantada oo kale ragga iyo dumarka way wada dheelaan wala saqo oo kale way wada dheelaan ciyaaro marka waxa jira ragga u gaar ah sida dumarka ka soo agdhawaanin
waxaa ka mid ah ciyaar la yidhahda saar ama gaaleyso dad badan ay daawanay hadday maqlaan ciyaartan waxaa leeyahay amay gaaleysiyo saar marka waa isku mid amay waa isku mid tahaa waa isku mid waa ciyaar dee aad jaanteeda u qurux badan tahay oo erey xataa wadato marka haddii aan qaado ma aan guda galno waxaa leeyahay amay dadka qaar ay kuraas jebiyaan bay boodaan jadwanayaan ajal boodaan marka waxaa ka mid waxyaabaha gaarka ay u leeyihiin ciyaar la yidhahda baxlo iyadoo cod badan ma lahan laakiin jaanta ay aad ugu dheereysaa waa jaan la isla qaadayo dadka dad aragtay jalboonaya kuwaas waa qaar ka mid macnaha ciyaaraha ay ragga leeyihiin waxaa jira ciyaaro dumarka u gaar aan looga soo agdhawaanin iyaga laftooda waxaan kala qaadi karnaa muxuu ahaa waxyaabo khaas ah oo gobolka dhan laga ciyaarin iyo waxyaabo dadka ay wada yaqaaneen sida hadda buraamburka oo kale markaanu soo qaadano guud ahaan geyga soomaaliya buraambur waa laga yaqaan aad iyo aad Soomaaliya waa dumarka u gaar ah ragga laguma yaqaan buraambur waxaa kaloo ka mid ah ciyaar la yidhaahda surow waa ciyaar dumarka waliba levelka lagu kala ciyaaro si kala duwantaan si kala bayaanaya buraamburka waxaa ciyaara sida badan gabdhaha yaryarka ah ee soo hanan qaadaya baa buraamburka ciyaara sida badan qofka markii uu xogaa dhexaad noqdane usan da'an uusan gaarin da'da ilmanimada uu ka soo baxa ciyaar wuxuu ciyaar leeyahay surow gabdhaha aad muxuu ahaa ugu badan yihiin jaan iyo codba way leedahay laakiin codka ayaa asal inta badan dadka markay xoogaa da' noqdaan surow ay kasoo gudbaan oo buraamburkii horeeyey surowgii baa ku xigay kasoo dhamaada maamooyinka markaasoo kale waxay ciyaaraan ciyaar la yihahda heelow baa la yihahdaa waa erayadeeda aad bay u cajiibsan yihiin bal hadda u imanana erayadeeda dhowr ku dhawaad 10 ciyaarood baa gobolka waxaa ka mid ah ciyaarahaas gobolka laga ciyaaro kala ciyaar la yidhaahda muxuu ahaa dee kabaabey jariil midna baa ku jirta adugu ay fara badan yihiin ma soo koobi karna dadka way yaqaanaan intaasuna waa gobolka baa laga ciyaara gobolna way jirtaa laga ciyaara gobolka dee waxa ugu wacan marka gobolada Soomaaliya dhan isku xidha Soomaali galbeed hadii tahay wax badan oo xiriir xuduud wuxuu leeyahay ilaa 5 gobol gobolka waqooyiga iyo gobolada dhexena wax badan oo xiriir baan leenahay koonfurta iyo xiriir baan leenahay de gobolkan Shabeellaha xiriir baa leeyahay Soomaaliya dhan isku xidhan center baan dhihi karnaa ciyaaraha laftood baan mid isku dul taagayna saarko kala ku bilaabana si guud baynu yani guud marina laakiin mid walba anagoo xogaa tusaalayaal raacinayna qaabka loo dheelo hadii istaag lagu ciyaar hadii bootin leeyihiin ay leeyihiin haday jiib iyo jaan leeyihiin ereyo loo qaado dagaara iyo qaab loo qaado hadii jir mid baynu isku taagidana bal hada saarka oo kale kulay de ciyaar aad macaan qofka yaqaan de soo xasuusan waxay leedahay cod iyo wasan lagu qaado u gaar ah qaabha waxaan rabaa inaan soo qaato laba eri oo tusaale sambal ah labadaas eri waxay tilmaamayaan nin baa wuxuu doonayaa inan buu rabaa inuu tilmaamo ama uu amaano quruxdeeda iyo waliba wuxuu ugu danleeyahay waxa la yiraahdaa timaheeda rabaa inuu wax ka sheego si ana u madow yihiin u badan yihiin dad wax ka sheegi rabaa marka wuxuu ku soo mitaali doonaa geed buu ku mitaali doonaa wuxuu leeyahay sidii garas gaaban geed weynay sidii garas gaaban geed weynay gerin yareey soo gaaray gerin yareey soo gaaray uu leeyahay macnaha sidii garas gaaban guud weynay wuxuu leeyahay garaska markuu gaaban yahay geedka garaska markuu gaaban yahay dee uu geed balaaran mugdi oo weey soo hoosgalay shamcira sida geedkaas uu yahay shamca oo nugulku u yahay ayaa gabadan wuxuu leeyahay waxay u tahay mug xaj yani quwad leh waxa kale ka mid kale wuxuu rabaa gabadhan dhirka iyo baac ay leedahay inuu misaal ka bixiyo kida uu yiri sidii baalugtoola baac dheer wasku wazan waa teori tan loo qaadi karaa marka la jiibinaya koox baa jiibinaya de jiibto qaaday wuxuu leeyahay sidii baalugtoola baac dheer barteed loo bagayba barida wuxuu leeyahay baarka ninka yaqaana geedka baarka dee laga sameeya cawda iyo muxuu ahaa qiimada iyo waxbaa laga sameeyaa baaladiisa markii uu 2 laamo ama 3 laamood ku baxa inta badan ma dheeraado laakiin dii hal laan uu ku baxo hawadaas uu gala marka wuxuu leeyahay sidii baalugtoola baac dheer baar hallo hallo duu leeyahay hawada u baxay mugta
sidaas sidii baad u miigantahay u dhaartowley sidii baa lagu tala baadheer markaad labadii barida way marka saarka waa jaan baa la socota markaan ku leeyahay hadda iminka noo saamixaysa waqtiga jaan dhignay laakiin tusaale markaa jiibkii jaanti buu leeyahay saafir wala tumaya qoobkeen wala ciyaaraya marka saarka waxyaabaha ugu muhiimsan ee isticmaal gobolka kamid aad iyo rag iyo dumarku way dhilaan dumarkana waa ay qaadaan raguna waa ay qaadaan laakiin meel kala dheelo isku dheelaa inta badan ragga laakiin asal waa inta badan la waxa laga dheelaa meelaha munaasabadaha iyo gaafafka meelaha munaasabadaha iyo ciyaaraha iyo adiga meel kastoo soo yimaado dadka yaqaan isku helaanba way iska bilowdaa wata waxaan u mekan u galeynaa suurowga asaguna kamid ah ciyaaraha yani gobolka Hiiraan gaarka leeyahay bal hada suurowgaasna qaababka loo ciyaaro iyo tusaalayaal suurowga liban wad maasan tahay suurowga waxyaabaha ay waxay kamid yahay dumarka isticmaalaan oo waliba dumarka dhexaadka ah u gaara waa ciyaar aad macaan badan hadii aad dhageysato dumarka badan ay dhageystaan way jalboon doonaa hadii ay bani gaarsiin aad iyo aad marka suurowga dhowr xigmad buu leeyahay waa la isku xujeysan karaa qof baa lagu amaani karaa wax baa lagu caay karaa adoo system kasto la doon loo adeegsan karaa marka waxaan ka soo qaadinaa adigu dhowr tusaale ka soo qaadanayna inan baa waxay doonaysaa in inan kaloo iyada gayaankeeda ah inay tiraahday ay waaniso waxay rabtaa waxay isbarbardhigi doontaa 3 nin 6 nin bay isbarbardhigi doontaa marka ragga kaga waramaysaa waxay leedahay raggan iyo kan iyo kanba kii roon adigu guurso war kan iyo kan kii roon guurso laakiin waa ku tilmaamay hadda laakiin ereyada ka arki doonaa nimanka la sheegay nin la guursado waa iska dhifba waa tahay si aan erey ka arkayn intooda badan ba waxay leedahay gabadhaas sadaa walxaato ku taal deelka soo dayday midkood dooro saddex walxaad ee ku taal deelka isu dayday midkood dooro macnaha isku feeri saddex nin weeyaan laakiin 6 bay noqon doonaan isku dayday midkood dooro midka mid dooro ku xul waa tahay waxay tiri dollar nin daadahaynaya iyo nin diinta yaqaan midkood dooro dollar nin daadahaynaya iyo nin diinta yaqaan midkood dooro waa marka laba isku waa laba yaa la isku barbar dhigay ninkan dollar buu haystaa deeg wax ma haya asaga waxba kala diineed iyo waxa shaqo kuma laha shaqo kuma laha laakiin lacag buu haystaa deeg waa nin hantile waa si wanaagsan ninkan diinta buu ilaahay baray laakiin asaga hadda wax hanti uu intaan ku guursi karo gayankeeda fara kuma hayo meeli karo waa taa marka waxay tiri saddexdaas labadaas midkood guurso mid labaad way ku tiri ilaa saddex leeyahay Soomahan mid labaad bay soo qaadanaysaa waxay tiri nin door ah oo deeradiis joogto iyo doqon kaligiis midkood dooro waxay tiri nin door ah nin la yaqaano oo hebel dadka ka tilmaamo laakiin maxay ku tiri islaam buu qaba deera macna naag baa nin waa lagu horreeyay nin door ah oo deeradiis joogto iyo doqon kaligiis midkood dooro hadda mid doqon guursi kartaa doqon ma guursi kartaa nin door hadda naag qaba lama guursi karo dumarku aad bay u nacbiin marka laba darmi dooro wey waxay ku soo gaabaysay midka saddexaad waxay leedahay nin diinta ah oo daweynaaday iyo nin da'yaroo diiran meel dooro ay tiri waa sidaa nin da' nin diinta ah oo da'weyn antina uu leeyahay laakiin waa da'weyn kaa waa duqnima lagu eedeeya sooma ragnimo la shinsadaa meesha ma taal waxaa kaloo imaanaya ninkii barbardhigaysan waxa weeye waa nin dhalinyaro ah da'yar laakiin diiran hadama waa haystaba ka farmadow meel adduun baan gacan ku hay mid meel u dooro aduu hadda maxaad hore leedahay labada mid waa la isbarbar dhigaya marka 6 bay noqdeen marka salo marka waxa kaloo kamid ah suruga aad buu cajiib u yahay waxyaabaha xataa waxa la geli karaa diinta waafaqaya waxa iskaaga dhawiin Soomaaliya shirabka iyo xogaa islaamka waxay tiri saddex walxaad oo ku taal siinka sidan maqal naarsadkeed waa معناها صدح شيء بقف كسمية أنا سيدنا نار تبتوية نار تو أنا درس ليه وحي تري نيكي سربي صار يتيمات سيدنا مقل نار سد كدوا دي حولاد يتيم قفك عني دي وكأهل نار أهل نار بقولي واتا قراع يتين عنقي الآن اسكا قضاك قيمة روا كان أبوانك والله واتا وحي تري نيكي سربي صار يتيمات سيدنا مقل نار سد كدوا waxay tiri salaada niman sujuudaynin sidan maqlin arsadkeed waa qof aad dukanayna waa ka qadka qoladaas ka mid yahay sadaqadiid soo himriixow sidan maqlin arsadkeed waa sadaqana ma bixiyo soo hin ma taqaan soomkii soo hin damay waxa la yiraahdaa dadka
beeraley waqti سعودي ما حدودها حدوديه دوا حدودي مسكه وضحيه صور مسك وكا وصور ريحه دي ما انت صور ريحه برو ودبن دربي قداك كينيا غريغا دول ادغو هذين كي سو جيدي قديد سو هم ريحو اما دبكايو كلا ابي كي اسو سلام بو هايستا ضربو كو هايستا marka suruug horto inamaas baa kamid waxyaabahaas aad ku cajiibka ah anigu qodayda macallin baan ahay waxyaabaha samicta waa jiraan waa taqulaado qodayda wata waxaan niri afar waxaad oo dhaay saaran dhaay saaran dhaqan ma leh aan la dhaafsh halay dhaaf hadii anagu markaas ka tarjumay bulshada sidii yihiin ka tarjumay afay bulshada waxa hadlaysa aad iyo aad waxaan niri mid uu dhawaqeeda dheeraaday dhaqan ma leh aan la dhaafsh macnaha sida caraweelo qaylisoy taami gurigeesan wata waxaan kale niri dhurbeeshadan biirka dhuuqaysa biirka dhuuqaysa biirka dhuuqaysa qamriga wixii la mid ah dhaqan ma leh halay wata waa halistaas wata midda isdaqdo dhalaalaysa wata dhaqan ma leh halay dhaafsh saddexdaaba waxa ka iga mara xagga iga mara wata midda dhaxda qaawan oo dhooban dhaqan ma leh halay dhaafsh iyana haydafto iyana de caariyad way marka surowga waxyaabahaas baa kamid ah dumarka inta badan aad u ciyaaro oo de waaba wajal badan qaarkood markay arkaanba waa soo xigaysan koox baa loo ciyaaraa asagoo jaan male inta badan marmana way iska jirtaa laakiin waxa zaid ma ah intiisa badan waa la jiibiyaa laakiin soo waa la jiibiyaa wata xagga sugaanta dumarkan de gaar uga hadlayna marka suuroga wixii islaamana uu saacinana marka heelowga asagana ka hadashay heelowga niyo waa murtida gaarka oo ay sidoo kale dumarka waliba maamooyinka inta badan aad u isticmaala wata de gabdha yaro heelo ciyaari ma yaqaaninba waa heer la gaarin si marka la eego wata darajo weyn heelowga isagu wuxuu ka mid yahay ciyaaraha sidoo kale maamooyinka ciyaaraan ee gobolka Hiiraan laga isticmaala waxa kamid ereydaan ka xasuus hello hayaba hilibka cadiintan ka cunna hello hayaba dhayda hilibka cadiintan ka cunna hello hayaba caanaha dhaydan ka cabna hello hayaba elka macdan ka cabna hello maamooyinka yaqaantay laakiin heelo waxa loo yiraahdaa heelaas macna lagu maareeyo heelo hayaba inta ka oranayaan ciidan way u tirinaysaa qofka de abwaanka marka intana wala shaqada iyo dhaantada iyo gelin ciyaarahan taariikh ahaan xilliga soo bilaabmay wax laga ogayaa sayidoo sida loo tumayo baa la arkay taariikhdan waa ka asal ba ka asal waxan waa dhaxal wali marka wax la hindisay waa dhaw lihin facba ka soo gaar ka facway sababtoo anaga dadkii igu horeeyba waxaan ku soo gaarnay idoo la ciyaaraya marka meesha bay ka timid ma dhigi karna laakiin waxa asal uu dareemeynaa marka inagna soo gaartay musalsala taariikhna uu soo gaartay in dadkii hore ay ciyaari jireen waa weeyashan ay ku soo barbaareen sababtoo wax hindiso la cusub oo la hindisay waa sidii hore dadkii hore kaga tagay waa tahay wala shaqada iyo dhaantada intayna gelin wax kale jirteen kabeebay ciyaar la yiraahdo iyo ciyaar kale badan way jiraan yar yar oo kabeebeyda waa sax dadku Hiiraan degan ma wada isticmaalaan qalli qaar baa isticmaalo waa dad khaas ah laakiin waa ciyaar caam ah oo geyiga Soomaaliya laga yaqaan kabeebeyda gobollo badan laga ciyaaraa ciyaaraha weyn ku jirta qodida ciyaaraha weyn ku jirta waa ciyaar hadda ereydan wax ka sheegi kan laakiin cod iyo jaan le waliba jaantada aad u xoog badan waata hadii ay isla qaadaan rag isla yaqaan waxa leedahay waa jalboonaysaa wala shaqada qodida waxa ka bitaa ciyaaraha gobollo badan ayaa laga ciyaaraa laakiin gobolka Hiiraan ay ku xoogan tahay kolka hadayna iyadu si target ah gaar ahaanba Hiiraan bay u badan tahay waana ciyaar dadka geyiga ee Hiiraan degan oo dhanba ay badankood garanayaan ciyaaraha waxay ku jirtaa common-ka ah oo dadka ay wada yaqaanaan waa ciyaar aad macaan badan oo de waxay leedahay de jaan iyo codba way leedahay cod iyo cod way leedahay ama jib iyo jaan labada jib iyo jaan way leedahay marka wali inta kale waa ragga iyo dumarkana de waa wada isticmaalaan waa lagu wada jiraa waa aad bay macaan badan tahay dadka waa lagu sarqaamaya dadka qaar marka aragtida iga dheeliyo marka ciyaartaas waa ciyaar cajiib ah waa geyiga Hiiraan laga isticmaala laga yaabo in wadamo gobol kale laga isticmaalo laakiin hada intaan aan ka ogahay Hiiraan u badan markii laga yani jiibkii jaanta laga tago bootin iyo maleedahay ereyo la qaado marka aad baa loo boodaa maana de qofka aan aqoon buu xidhan qofkan miyuu waaliyo isleeyay hadda miyuu dhimar rabaab
haddana waa ciyaar duu qofku waaba qof maxaba ay u haysa ciyaarta marka jiib iyo waxay leedahay jambo way leedahay bootin isku jiraan guud ahaanba wata dabcan de gobolka Hiiraan iyo gobolada dhexena waa laga ciyaartaas iyo shabeellada hoose inta shabeellada dhexe waxyaaba hatta waa la mid laga isticmaalaa laakiin de kuma badno waxyaaba caamka maka daatada qudheeda maadaama aad xagga shabeelle ama gobolkii guday aad xaggaasan jaarkatiin wax badan wadaagtaan kaabiga ku hayn qudheedan daatada gobolka Hiiraan waa laga isticmaalaa laakiin si ka duwan sidii galbeedka iyadoo Soomaaliya waliba ka si cajiibsan waa ayana isdul tag daatada de anaga Hiiraan hadeen aan isticmaalno wanaanta codkeen anaga aan ku la xameysnay sida badan waata qaabidin gaar ah dusay ne tigni qofka asaga la xameysnay wiciis waata de malahan wax muusig lagu raadinayay midna maana uma baahna waxa marka la qurxinayo baa muusig la geliya soo maxaa laxan laga rabo dadka ayaga la xameysto aad baan lagu isticmaalaa laakiin ay ciyaarihii hore de asal ma kamid ahayn mar dhow bay soo gaartay gobolka laakiin meelaha kale imaanaa soo gashay iyada nafteeda dhowr nooc baa loo isticmaalaa de mar waxaa lagu isticmaalaa istaaga qofka laba nooc kala moogta marna waxaa lagu isticmaalaa forarsi baa lagu ciyaaraa mar istaag baa lagu ciyaaraa jam bay leedahay cod bay leedahay iyo laxan lagu qaado waxaa ka mid ah marka la taagayo kale marka ka soo istaaga lagu geeran nin baa wuxuu leeyahay alla yaa kula duula yaa dayuurad ku saaro dal carbeedna ku geeyo dabaq dheerna ku saaro dabaq dheerna ku saaro dollar meel kugu sheego dahab kugu firaasho dugsi meel kugu oodo cilmi kugu daliilsho deeqoy ku yiraa hele dol xareere daleer baan dartaa iga dhaanaadiro jalbaan kudin waxaad noo dareesid marka ciyaarahan marka laga hadlayo de markii la isku soo baxayo la ciyaarayo miyi magaalada wada gobolka uu leeyahay marka labada waa laga ciyaaraa marka la isku soo kulmayo ama la isku soo ururayo sida ciyaarta loo tumo badanaa hadda habeenkii baa la tumaa ciyaaraha siba la isku soo marka la isku balansaday la isku soo urura de dadku sidoo markay la rabo in la ciyaaro ciyaarada waa laba siyaabood midna munaasabad baa lagu aadiyaa oo tusaale sida aroos baa jiro kale meelo baa xus iyo waxyaabaha lagu qabaayo oo kale waliba aroosyada u badan arooska markii la isugu yimaado rag iyo dumar waxa weeyaan waliba ciyaarta markii la yimaado dadku way kala baxayaan marka meesha isugu yimaado kale ninba wixii uu yaqaan uu tirsanaya ma la isku foodaynayo nin waliba de wuxuu garanayo tirsanaya de dumar walbana tii ay ka hesho jeceshahay bay aadi tusaale dhaanta ninka yaqaan kale halkaas uu ku qabsanay dhaantiisa halkaas uu saga tumanaya ilaa uu soo ka daala iyaga ka wada daalaan isku tumanaya ninkii de saarka garanay halkaas uu qabsanay heelowgi de dumarkii sidoo kale surowgi buraanburki de dadka soo yaqaan munaasabadiisa waa meesha la isugu qolaba dhinac ka cabaranaysa wasada leena dadka munaasabad maalin kasta ma jirto moogta xarada intii qoyinta la doogta soo lama dhig de munaasabad waxa laga in bishii mar soo marta labadii bil sanadkii in mar timaad laga yaaba dadku isu heelan yihiinba nin walba ciyaarta u yaqeeni oo maxabo ayuu la golo imanaya wata dabcan ciyaaro badan yaa gobolka laga tumaa ama laga isticmaalaa ama laga qaadaa marka dadka reer Hiiraan caadiga markaad eegto ama bulshada guud ahaan ciyaarta ugu saameynta badan ee maanta hadii la tumo kii shaqahayeen uu soo joojinayo kii fadhiyeen uu sii istaagayo kii bulshada kicinaysa ugu saameynta badan waa ciyaartabada oran kartaa تامركن يراهد ونكل قاعدينه لأن بالشدة وحي كانت هاي ده هير هوسة level دبل قذا كلا أردا وكلا تصالة مركن يراهد وكلا يرجع كمركن أسوأ يقول رليرة مكان يقول دان فضا سامين كله وأد معناه دي دان تأي وده مغلان سو عررية حاجة ده حق رليرة مكوين هذا صار كبي أد محوا يولا سقطة صار يولا سقطة وحوي يعني وحاجة وين كما با لو ما بهستبا إذا دمر كان ده سروقودي هولو ده يقولني أمريكا يسوي ماذا أنا أكله. marka saarkaas oo kale suuruga iyo waxa ka mid yahay ciyaaraha gobolka gaarka laakiin wiil saqaday dhaantay iyo gobolka kale lagu daagay iyo caam iyo waxyaabo badan la ismaa gobol badan leeyahay wata anagoo gabagabadina ku sii dhow ciyaarahan de muhiimada ay u leeyihiin dhaqanka Soomaalida dabcan de gobolka kale kuma koobnida dhaqanka guud ahaan ayaa de macallinka tayaafka waa maasan tahay ahmiyada ay u leeyihiin dhaqanka Soomaalida ciyaarahan de wax walba waxay leeyihiin sooyaal iyo taariikh la maro
dhaqanka iyo sooyaalka Soomaalida marka la eego waxay ku saleysan yihiin deegaanka hab dhaqanka uu leeyahay iyo ciyaaraha uu leeyahay marka haddii ciyaartii dib loo nooleeyo ama la yaqaano la xusuusto de ama la arka qofkii wax garad oo yaqaan dhaqan wax ka wali awle waa sax waa nidaamka soo mari jirnay de lagama hadlayo wixii sharciga khilaaf lagama hadlayo wixii walaagsan laga hadlayo wixii da sharciga khilaafsan waa ka gaarkiisu weeyaan laakiin wixii raggu ay iska ciyaarayaan iga galigood ee dumarka soo dhaxgelin oo kale ama dumarka ay gaar u ciyaarayaan oo kale aan hadda caay iyo habaar imin aan ku jirin waa iska caadi waa iska caadi marka dhaqanka curfiga madiida islaamka waxay wanaagsan in diinta laga curfiga laga qaato dhaqanka bulshada waxaan leeyahay dhaqanka asalkaaga hore iyo hala ilaashado waa dhaxalkaagni waxa jira ciyaar isbedbedela oo hadba casriga marka la joogo ama jilbada intuu ka soo gaaro wax ka sii bedbedelo dhaantado kala kamid ciyaaraha gobolka Hiiraan ciyaarada markii hore qaabkii loo dheeli jiray hadda ka yar dugan oo soo bedbel ma jiraan oo qaab kale inkastoo hadda nin iska yar aan ahay de waxa ma la soo kulmay inuu jiilkan u baan la soo kulmay in si hore loo dheeli jiray mumkin waa dhici kartay laakiin anu hadda sidan arkay waad sidii aan soo markaan soo barbaaray ilaa hadda aan sidii aan arki jirin u baan loo dheelaa hadii marka laga yaabo in anaga aan casriyeynaba dadkii laga horeeyay si kala u ciyaari jireen ayaa laga yaabaa waa tahay de markii macalinimada iyo waxa laga soo tago waxa ku sii dheer xirfadda hal abuurkana waad leedahay ama hibada aan iraahdo xirfad waa maasooyin badan baa culusa gabagabadii de barnaamijkan waan ku sii downaa ama wareysiga de hal iyo laba maasooyin kaad culusa adoo noo soo gaabinayo waa sax hal abuurka ama haltiminta suugaanta iyo waxbaan isaga daya de ma yihi darajo abwaan oo de in hadda heerkas gaari maanan yihiin laakiin adoo wax un bartood waan isku day de marka qaar isku taagtay danabtooda ereyga abwaan marka la yiraahdo abwaan ma yihi markaan leeyahay dadku abwaan hadday maqlaan waxay u yaqaanaan oo ninkii wax xuriye mogta nin bila yacsir oo marka gabadhiisa meel kasta yeelaan abwaan waxaan dhihi karnaa waa laba shay u noqon karaa abwaanka de midna waa muallif midna waa muxaafid de mid wuxuu awood u leeyahay inuu wax na curiyo wixii uu maqlan oo xifdiyo midna laakiin waxa ma curi karo hal tabin midna ma lahan laakiin wuxuu leeyahay dhug wax maqasho xifdiso wax alla wixii gabayl wixii maqlabo de taasoo ku xifdiyo hore ka qaybay hore ka qabanaya anigu marka waxaan u badanayaa sida badan horta xifdiska u badanahay doo gabayg maanta hadaan maqlo berri ma u baahan inaan sii waxay horaad ka haysan inta badan ma aqaan maalifna waan ahayo de waxyaabo waan isku daday waxa jirtay garaar badan iyo heeso aan alifay markaas aan ka alifay dhanka dhaqanka oo kale wata waliba de bari hore oo wax markii hore la jambadahay ama dadku de hadda ima garanayaan aad de muuqaalka dadka fiirsanaya ama daawanaya de waxay u jeedaan oo madaxii oo de iska nik hagaa aad de bari baan timo lahaayo dadka leega xulan jiray niyo tintii markaan iska xeeyay baa muxuu ahaa ee horta sidaan soo baxday wata nin caadi baad noqotay caadi ma noqdo dadku caadi ka mid noqday bulshadii ku dhex jira bariya markaan tinta lahaa dadka de nin saameyn ku laho deegaanka uu degan yahay xaafadda iyo laga yaqaano laamiyada dadku maxaa weeyaan ay soo dhaweynayaan baan ahaa aad iyo laakiin markaan tinta xeeyay xasarad baan lahaa laakiin markaan tinta xeeyay maxaa soo baxay wata waxa soo baxay أنا دي بسوق أخري وحنا وقاعد إنت سيدي عن هران أحيانا نحن كدي وحنا كألف في هذه تحيره مع ساعة الوقت تحضر يتحكلوا عادي تحضر إذا تحضر مركب حلا هاي ما ده حير سيدي وانك الله يبكت ما ده حير حيرت عادي يصامين تكون وعندي تمهي يجي حيرته حالف بان كده يجي وحالة جرا أوجد حاشا لله يمر كان حير تمهي حصص دريان قال حصص دريان قال وعندي مركب تجي حلاقي اوكي وتنتي حيري مركب تجي حلاقي وحد بيجي تروح لقى حشاميه حشا لله يحسب دريان قال تنتي دي وحنا كده فراك بوت ولا حاقه يبا هذه بسوي يبا انت سكيله ادي وعنيري حافظي مركان تجي waxba kaaga dambeeyba xaafadii markaan tagay waa laga yaabay markii dambe waaba ka daran tahay xaafadii markaan tagay oo xubin u fiiriyay xagla dheer barshankii markaan jiif xasuusta boqorta lagu xasilin jiray harakada magaalada aan ku xiran jiray xasha lillahi xusada rayhan kale tadarkii waa kan iyo barshankii maanta meey waxay ku saxani ma walaa ku taala xusada rayhan kale xaraarada kuleelka unugyada xambaarsan madaxayga xilaa markay xowl ugu dhacday حاشا لله يحسد ريان ده انت انت لها واد هرسنيسا markii qorax idii midna ma aanan dareesanba markan in baan xeertay waxana waa in qorax ba ay jirtay madaxayga qabtay waata
waxaan nidhi dadkan wada xamlee jiray xigta iyo xigaalaba marka lay xaqriyo xulf laygu soo maray xaasha lillahi dadka laygu xulan waa xaasha lillahi xasuus dheer ayaan galay dadku way yaqaaneen tim weyno ali orajiri maanta iska agmaray iska agmaray dad ma eegayaanba waayo dadka caadi la mid noqdo moqt xasuus dheer ayaan galay aduu way dheereed waxa kamid ahaa dadka xushmada badan oo xaalkeygii hore iyo xaqdheer timihii dib u soo xurmeeya adii ma soo way dheereed marka talaad ku diisan comment lagu soo bixiyay de waxa ahaa dib u soo celi waa ta hadda aniga hadda aan wado waa soo celinaysa marka waa tahay ma sooyinka kala hal iyo mirka ugu xiisaha badan waa ma santahay gabadii waqtigana joogno aad baad ma santahay nimaasooyinkii kale way badiyeen aan horta waxaan ahay macallin waa tahay mar haddii aan macallin ahay mar walba wixii macallin ku saabsan inaan hawlihiisa ka hadlo markaas tirtirsiinaysaa mar qof walba dama ogtahay dunida xirfadu hayo uu sii hormariyaa mogti marka hees baa jirtay aan u sameeyay macallimiinta oo markaas aan kaga hadlay qiimaha uu leeyahay macallinka Soomaaliya way badan yihiin laakiin mid ka mid ma soo qaadan doona heesaas waxa leeyahay bulshooy macallin waa kuma su'aal mogti bulshooy macallin waa kuma marka aad ugu jawaabaya ana ugu jawaabaya maadaama aanu macallinka aan ahay bulshada anu aan kamid ahay macallinka doorkiisa aad garanaysaa bulshada ku dhaxlaya aan waxaan leeyahay bulshooy macallin waa kuma maqaamkiisu waa maxay marka ana ka jawaabay waxaan leeyahay mahiga ka roobko maasheeyay dunidu dadku kaga macaasheen ayaan meel la jooga anigu macallin baan ahay iftiinkan ku magacay maankan korshaayo maskaxdan ballaarsha cilmigan ka buuxsha anigu macallin baan ahay malaayiin qofood baan mir aqoon ku beera mugdigan ka saara anigu macallin baan ahay macallinka intuu hal maalin soo saaray meel xisaabi kara dadkii maskaxdoodii door iyo 10 fasal baan hadda galnaa oo min 30 min 40 sanad walba intaas baxaysa baxay waxaan niri malaayiin qofood baan mir aqoon ku beera mugdiga ka saara anigu macallin baan ahay ragga dunida muuqdo madaxweynayaasha macallinkoodii baan ahay cilmigan u meershay martabka ku gaareen anigu macallin baan ahay dadka taqaatiirta dunida oo dhan madaxweynayaasha ragga soo maraan waa macallin bay soo wada mareen waxaan maandeeq sideedii ayaan maqasha koriya miftaaxii qalbiga iyo mirir dhowra baan ahay anigu macallin baan ahay dadka waxa weeyaan ardayda marka la soo saaray laba system waa la soo saaraa waalidka dhalay wuxuu baraa canugiisa ama uu kusoo koriya jirkiisa koriya lan cunno siiya macallinkuna waxa weeyaan maskaxda ayuu koriya marka heesaas de waa hees aad cajiib u ah waa filaya waa saameyn badan bay leedahay waliba eriya qari iyo quluda hiro ku jira aduu waa ay badan yihiin waxa kale kamid ah hataa hees oo yar ay rabtaa ay leedahay garashiya aqoon baa lagu gaaray guusha adigoon gar iyo xagardarada u sacabtumin guushaada kii jecel magar baa garaad xumin aad gacanta goysa dee dadka ma ogtahay macallin marka la eego bulshada dadka hadda marka la fiiriyo geeyaan ku noolnaa dadka ugu liito ku jira sababtoo qadarin marka laga reebo wax dhaqaale ama soo maqaat marka waana meesha ugu muhiimsan la doonayay in dadka bulshada ka dhisan laga jahaynayo waa tahay marka ugu dambeyntii kulleeda macallin af Soomaaliga waa tahay aad iyo aad dee dhaqankii waa arkaysa waa tahay aad iyo aad halka uu yaallo saameynta biraha bulshada waad arkaysaa dee bulshadiiba dhanka kale inay u sii ma garanaysaa dhankii wanaagsanaaba laga sii janjeersanayo waxaa kaloo ognahay dee af Soomaaliga ama maadada af Soomaaliga waxaa lagu daray xilliyada muhiimka ah ee xiisadaha la galay laguma daro xiisada ugu dambeysay lixaad xilli la caajisay waxaase lagu soo beegaa adoo dee tala guudna Soomaalida u jeedinaya dhaqankii waxa la ilaashado iyo mirka Soomaaliga ka hadlaya halka la kaliya war hadda inoo soo aad baad u maasan tahay macallin marka la fiiriyo secondary levelka iskuulada ka jira aniga dhowr iskuul baan soo marmaray midka hadda aan joogo waa midka ugu roon asdii karaaba iskuul laftigiisa markaan eegno hal xisay ka tahay Soomaaliga maadooyinka kale scientifiga ay yihiin afar xiso weeyaan shan xiso la kala qaar
afkii hooyo oo loo baahnaa in isaga la hormariyana hal xisad maad geliya fasalka marka waxaa laga yaabaa in maanta toddobaadkiiba hal mar u tagto maxaad ku sheegi kartaa toddobaadka hal qof aad tagtay ma arbixinaad gashaa mase cashka meesha ku dhigtaa adigu xilligan waa xisadu waa 40 daqiiqa waliba xisatul qaafuri bay ardayda yiraahdaan xilliga breegi iyo ka dambeeyay ka soo laabadkood qabi qacdo ardayda xilli waxay ku soo gaarayaan waxyaabaha qaar mid kala guurka ah baa lagu aadiyaa marka ahmiyad baan siinay marka bulshada waxaan leeyahay war waxa dad ku tihiin waa dalkiin dalkaaga marka dad ku tahayna waa dhaqanka iyo afkaaga ee taqaano way marka waxaan leeyahay maadada hal hormariyo waa tala guud Soomaaliya waa tala guud Aasiya waa tay dadku dhageysan doonaan muuqaalka dhageysanay ama daawan doonaan iraahdo iyo goob joog TV iyo guud ahaan maxaad kaga baxaysaa yoranaysaa intaan waad maasan tahay guud ahaan waxaan leeyahay wax soo gucleeyo hadba gelin caraaboon godadada ka leexdaba goob joog hadaan imid waa guul ma hadi galabta waa galab aan goob joog joogo markii ugu horeysay aan ka soo qayb galay barnaamijkan marka bulshada Soomaaliyeed magac iyo maqaam meel kasta oo joogan kuwa magacayga yaqaan Ustaad Amiir iyo kuwa aqoonba waxaan leeyahay salaamantiin salaam gobeed baan idin soo gudbinaya aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayalkaas wuxuu ahaa in Ustaad Cabdifataax Ibraahim Amiir oo kamid ah macallimiinta ama barayaasha sare ee wax ka dhiga dugsiyada sare ee gobolka Banaadir isla marxaataasina ku xeel dheer dhaqanka iyo afka Soomaaliga inooga warramaya ciyaaraha gobolka Hiiraan iyo guud ahaan dhaqanka Soomaalida sidoo kale ustaadku wuxuu maamulo ka yahay milkiilana ka yahay macadka ama akademiyada qoraalka iyo waliba farax qurxinta ee la yiraahdo qalin iyo qoraal intaynu todobaadka dambe barnaamij caynkan kala kulmi doono waa Liban Axmed Xirsaab wan Hareeri iyo Ustaad Amiir oo idin la sidaa iyo nabadgelyo